dambe ee barnaamijkeena hargalka ayaan isla soo gaarnay shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta dalka Soomaaliya oo waqti dheer martigelinayay dagaalo sokeeye ayaa sababa inta badan in boqolaal dhalinyaro ah oo wax baratay ay waayaan shaqooyin ku haboon. Nuuridiin Muuse waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada Hargeysa. Dhamaystirka waxbarashadiisa kadib waxa uu la yimid fikrad cusub taas oo ah nashqadeynta guryaha. wariyahana magaalada Hargeysa Maxamed Cumar Daariq ayaa la kulmay wiilkaasi dhalinyarada ah sheekadan la ka diyaariyay. inkastoo dhalinta Somaliland ay ka cawdaan camal la'aan soo food saarta marka ay dhamaystaan waxbarashada heer jaamacadeed, haddana taasi kama ay dhigin injineer Muuse Nuuridiin Muuse mid dib u dhigta. injineerku waxa uu ka mid yahay dhalinta da'da yar ee reer Somaliland, waxa uu ku dhashay waxna ku bartay magaalada Hargeysa. waxbarashadiisii aasaasiga ahayd ilaa heer jaamacadeed, waxaana uu ka mid yahay dhalinta iyagu dhexda u xidhay sidii ay u abuuran lahaayeen shaqo isagoo ku dabaqay cilmigii u soo bartay. injineer Muuse subaxdii marka uu kaco hadba waxa uu tagaa goobaha uu ka binaynayo guryaha ee ku yaala magaalada Hargeysa, isagoo u kuurgala qaabka ay u socoto shaqooyinka kala duwan ee dhismayaasha uu ka wado magaalada Hargeysa. waxa uu ka mid yahay dhalinta da'da yar ee leh shirkadaha ugu horeeya ee nashqadeeya dhismayaasha laga bineeyo magaalada Hargeysa kuwooda ugu quruxda badan. nashqadaha iyo dhismayaasha uu ka bineeyey magaalada Hargeysa oo qaar ka mid ah una soo tusay waxaa ka mid ahaa kuwan. injineerka oo la hadlayay hargalka RTN ayaa ka warramay waayihiisa nololeed iyo weliba sida ay ugu suurto gashay fursadda maanta uu haysto, isagoo da'yar inuu noqdo injineer dhinaca dhismaha isla markaasina guryo tiro badan u ka bineeya magaalada caasimadda ah ee uu ku dhashay ee Hargeysa. injineerka oo umuurahaasi ka warramaya waxaa ka mid ahaa hadalladiisii. waxbarasho iyo noloshayda intuu badan ku qaatay Hargeysa ku qaatay Hargeysa ku dhashay Hargeysa wax ku bartay daamin saxway Hargeysa yani ma dhaafin dugsiga soo dhaxay la heer jaamacadeed Hargeysa ku qaatay aqoontiidu waxa weeyaan architect and urban plan engineering noloshayda intii ugu dambeysay waxa saameyn ku lahaa dhismaha waliba dhismaha gobolka gaar ahaan Somaliland. anoo meelo badan intii aqoontiidu gaarsiiyay meelo badan wax ka soo dhisay ha u badnaata magaalada Hargeysa caasimadda ugu badnaato. dhismuhu shayga dhismaha la yidhaahdaa aad buu hawlgeliyahay marka dhismaha laga sheekeynayo. dhismuhu waa waxyaala hawl badan marka waxaan ka soo bilaabay noloshada dhismaha intii ku dhex jiray waxaan ku jiray muddo kooban ma ku jiray intii aan jacaylka ku jiray ma dhismaha ku dhex jiray beri hore waxaan u shaqayn jiray
formaanada u shaqayn jiray oo assistant-ka formaanka si hooseeya noqon jiray anigoo xaraqeydka u qaban jiray marka sayska dhigayaan birta oo calaamadin jiray mitirka la qaban jiray anigoo waxba ka qaadan jiray nolosha intii baday halkaasaan kusoo qaatay ilaa maalinta ka dambeysa aan graphic stage soo gaarayay heeraan gaari markii dambe inay formaanadu aniga ii shaqeeya aniga hoos imaadaan taana waxaa sababaysaa waxbarashadayda waddanka ku dhex watay oo ii saamaxday inaan basic real life marka loo imaado aan basic ka soo qaato ilaa maanta heerkaan gaarsiisan dhismaha waddankuna waxaan oran karaynaa wax badan baan kusoo kordhinay oo aqoontaydu noo saamaxday maasha allah inkastoo ay iska dhib badan tahay oo markaan ka hadlayo architect ahaan markaan ka hadlayo marka qofka client-ka ku yimaado ama qofka doonaya guri inuu dhisto iska dhib badan tahay waxay u dhib badan tahay gurigu hore usoo arkay gaar ahaan waliba waddankeena marka la eegayo dumarku ma aada ku dhistaa rag waxba aada ma dhistaan gabadhii marka kuu timaado ku tiraado guriga ii dhis waxay ku oranaysaa guriga ku oranaysaa guriga noocaa noocaasee guriga hebel kufay garanayso ay ku geynaysa waxay ku oranaysaa guriga oo kale shadka ka kobiyeyso gurigaasoo kale dhis xaqiiqdiina waa mid aan aada u fiicnayn dadka waxaan kula talinaa in waxa maskaxdooda ku jira loo dhiso guriga qofkanaa degaya adaa degaya waxaan ku qancinaa bal adu guriga degi lahayd maskaxdaada ku jira iska dhaaf guri hebel loo dhisay guriga maskaxdaada ku jira at least inaad kudiso dadkeeduna dadku waxay jecel yihiin at least gurigooda in dhagaxan caadigaan isticmaalno ay aada u jecel yihiin gaar ahaan soomaalidu gaar ahaan halka rijinkaan deganahay gobolkaan deganahay waxaad u jecel yihiin inay guryahooda dhagax ka dhigaan wallahi waxaa jirta dhibaatooyin aad badan oo dhismaha dhexdiisa dhex taagan way jirtaa oo hawlo badan oo dhismaha dhexdiisa taagan haddana si kastaba ahaatee markaad qofka basic kaa soo bilaabo from zero kasoo bilaabo wax badan ku fahmaya wax badan oo la qabsanaya intoo badanna waxaan isku daynaa inaan dadka ka dhaadhicino in iyagu waxay doonayaan dhistaan in iyagu wax maskaxdooda guriga imagine guriga maskaxdiisa ku jiro qofka inaan dhisno dadku marka noo maadaama waxaan ku qancina halkan fadhiiso interview baan la yeelanaa waxay nahnaa maxaa doonaysaa sidii doonaysaa in lagu dhiso markaan intaa u dhamayno versman waxa weeyaan sayidkii hadda dhulkii loo dhisiyo qofkii la tago lasoo eego dhibaatada ugu badan ee dhismaha awalkeeda horeba ku dhacda waxa weeyaan dhulka waxa laga yaabaa cabirkiisii oo sax ahayn qofkii inuu kuu sheego oo qofkii maanta inuu qaad aragtaan aad meeshii tagto aad cabir kuu saarto hadha waxa laga yaabaa inuu qofkii markaad maalinta ugu horeysa aad sayidkiiba u jeexayso inuu hulsaaid kusoo baxa qofkii oo la yidhahdo 6 mitir 7 mitir baan helnay oo dhinacaasaan ka helnay nagu dar waa new challenge marka challenge isku aad u iskaga hawl badan yahay qaybta dhismaha marka la eegayo qaybta design-kuna waa lamid waxaana fiican qof walba in xuquuqdiisa loo dhalo qof kastaaba nashqadiisa gaar ahaan waxaa la hadlaya marka la hadlayo daaweynta ilmaha ku dhex jirta instructionka dhismaha ku dhex jirta gaar ahaan formaanadu waxay yaqaanaan koobigay yaqaanaan dhismihii aad arkayso dhismaha inuu yahay waxaa laga yaabaa 20 guryo kale ninkii formaanka kusii dhisto waayahan